برنامج كان يهدو تقويم عمر الدنيا الهجرية تقويم وكالندر كالندر كاسو مغيسو waxa la yiraahdaa عمر الدنيا wuxuuna ku saabsan yahay الهجرية كالندر kaas waxa weeye waa cilmi baaris muddo dheer aan soo waday hijrada 1394 laga soo bilaabo 1394 ilaa iyo 1444 waxay dhamaatay 1444 kowdii bishii tobnaad ayay dhamaatay kowdii bishii 11aadna tijaabo ayaan galay wixii soo baxayba barnaamijkan waxa iga duubaya Cabdulqaadir Yaasiin Cabdille Washington lagu naynaso waxaan joognaa magaalada Gaalkacyo baan joognaa oo bandhiga aan ku soo dhigayaa cilmi baaris ku saabsan taqwiimkan taqwiim umr dunya al-hijriya marka la yiraahdo cilmi baaris waxa keena baahi marka joogta oo la rabo in la xalliyo cilmi baaris waxba lagu xalliyaa xalka marka la xallinayo oo aan rabay inaan xalliyo oo cilmi baaristan aan u sameeyay waxay ahayd waqtigaas 1394 ayaa waxa soo kordhay Soomaaliya arrin cusub waxaan galnay Soomaaliya ururka jaamacadda Carabta ayaan galnay markaan galnay waxa nagu soo kordhay waxyaalo cusub oo ku saabsan kalendarka hijriga waxa la soo go'aamiyay in la soomo lana iido wadamada Carabta oo markaas aan ka mid noqonay laakiin marka dawladii nooma aysan sheegin inaan magaranaysaa la soomayno oo aan la afurayno jaamacadda Carabta laakiin siyaalo kale ayay waxay garatay inay wax ku xaliso waqtigaas Soomaaliya waxa ka jiray laba idaacadood oo la kala yiraahdo raadiyo Muqdisho iyo raadiyo Hargeysa labada idaacadood baa dadweynuhu aad u jeclaayeen labadaas idaacadood baa dadku dhageysan jireen waqtigaas marka dawladdu waxay marka go'aansatay in ay markii ay xagga looga soo sheego xagga Carabta ah inay tiraahdo bishii waxa laga arkay Soomaaliya meel kamid ah badana waxa laga sheegi jiray magaalada marka caday ayaa laga sheegi jiray markii ugu horeysay oo bisha la sheego waxay ahayd Ramadaan bay ahayd Ramadaanka marka la sheegay ogeysiis baa marka hore idaacadu ay sii deynaysaa in bishii laga arkay meel hebla in bishii laga arkay haddana waxa weeye barnaamijku waxa ku xiga in laga sheekeeyo ogeysiiska ka bacdi fadaaisha Ramadaanka hadii magaranaysaa muxuu iid la galana fadaaisha iida iyo sida loo iidayo ayaa laga sheekeyn jiray haddana waxay ku xijin jirtay barnaamij kale oo ama soonkii ah ama iidi ah barnaamij magaranaysaa heesa ah oo lagu soo dhaweynayo Ramadaankii ama iidihii lagu soo dhaweynayo marka saddexaas barnaamij mar hadii la saaro waxa weeye dadku caadi ahaan suxuurtoodii haday Ramadaan la sugayay suxuurtoodii ay iska diyaarsan jireen marka bishii ugu horeysay oo la soomay oo Carabta aan la soonay markii aan soonay galabkii ayadoo la afurayo afurkii ugu horeeyay ayaa waxa la siri bishii bal hala fiirsho bishii baa la fiirshay mise bilba ma jirto waxa lagu yaacay culimadii ayaa loo tagay waxa la yiri maantana waa soomanayn caawana bilma jirto marka culimo Allah ibn arintaas bal xalaha loo keeno culimadii waxay wax ku xaliyeen oo ay yiraahdeen anaga hadii bishii noo sheegay soonkeeni waa noo jiraa dambigana waxa qaba cidii beenta sheegtay ayaa dambiga qabta marka waxay noqotay in soonkii marka saas ayadoo magaranaysaa niyadu degan tahay oo culimadii dadweynaha niyada ay u dejisay in soonkii la iska wato marka arinta kuma istaagin soonkaas kaliya kuma istaagin iidii ku xigtay sidoo kale noqotay waa la iiday
markii la eedana galabkii dambe saako dhan ayadoo la eedsanaa oo ilmuhu ciyaarayeen oo la faraxsanaa ayaa waxaa la damacay bishii saaka lagu iiday in la fiirsho bishiina waa la waayay haddana waxa weeye warkii culimada la qaatay waxaa la yiri dambiga waxa qaba cidii beenta sheegtay ayaa dambiga qabta markaas anigu waxaan joogaa waxaan ka mid ahaa ardadii loo saaray Farsoomaaliga baadiyaha loo saaray baan ka mid ahaa tuulo waxaan joogaa la yiraahdo Salax waa tuulo ka mid ah gobolka Mudug oo Salax la yiraahdo ayaan joogay marka dhowr jeer markaan aragnay soonkii iyo iidii inay khaldan yihiin ayaa markaas waxaan yeestay inaan sameeyo calendar inaan sameeyo habka cilmi baarista marka aan sameynayo waxaan soo maray saddex tilaabo ayaan soo maray saddexdaas tilaabadii ugu dambeysay waxay dhamaatay 1444 taas hadda meesha noogu qoran ayay dhamaatay marka tilaabadii koowaad oo aan qaaday waxay ahayd waxaan ognahay anigu arday baan ahaa waxaan ognahay goobadu inay tahay 360 marka bishu waxay ku wareegtaa dhulka goobadiisa oo 360 marka 360 kaas darajo oo goobada ah bishu waxay ku qaadataa 30 bari ama 29 maalmood bay ku qaadataa marka la isku qaybsho 360 darajo 30 maalmood marka loo qaybsho waxa weeye maalinkiiba bishu waxay socotaa 12 darajo ayay socotaa marka waxa weeye xalayto hadii halkaas oo kale ay joogtay bishu caaway 12 darajo kor u baxaysaa habeen ku xigana 12 darajo kor u baxaysaa habeen ku xigana 12 marka 12 kaas darajo ayay ku dhamaysanaysaa wareegeedii laakiin biluhu 30 ma wada aha qaar baa waxa weeye 29 halka marka waxa la sameynayaa 12 ka darajo waxa wehelaya pointi number baa wehelaya marka pointi number kaas baa wuxuu keenayaa bilaha qaar kood inay noqdaan 29 marka waxaan sameeyay si aan u helo pointigiisaan u helo waxaan ka dhigay misaalba muxuu ahaa 12.17 darajo ayaan ka dhigay marka dhibic 17 kaas darajo inay keento bilaha kuwa noqonaya 29 ka inay sabab ay u noqoto ayaan ka dhigay marka waxaan rabaa bisha iyo marka numberkaas aan qaatay anigu oo aan ahayn number sax ah oo baaritaan ah cilmi baaris iska ah in aan bishii la ku fiirsho bal sax inay ku tahay iyo inay khalad ku tahay hadii marka bishii ay dheerayso numberka 17 ka bounty 17 ka ah inaan wax ku daro oo bounty 18 ka dhigo bounty 19 ka dhigo bounty 20 ka dhigo kor aan u wado ilaa iyo bishii oo dheeraysay xawaaraheedii aan la qabsado hadii bounty 17 kaas uu noqdo number gaabiya inaan wax ka jiro oo bounty 16 ka dhigo dhibic 15 dhibic 14 saas aan u wado ilaa iyo aan ka helo xawaarihii runta ahaa marna wax ku daro marna aan wax ka jiro sidaas ayaan horta shaqadii ku bilaabay shaqadaas muddo aan waday waxaan waday shaqadaas 12 sano ayaan waday 12 sano waxaan ogaaday in bishii xawaare sax aysan lahayn oo xawaaraheedu marna uu soo galayo dheerayn marna uu soo galayo gaabin uu soo galayo marka waxaan arkay number hore oo aan soo dhaafay oo gaabin ahaa oo haddana sax noqday awalna ma garanaysaa awalna khalad buu soo noqday dheerayn baan aaday dheerayntii khalad bay noqotay gaabintii buu ku noqday haddana gaabintii dheerayn bay haddana ku noqonaysaa marka waxa weeye xawaarihii bisha ayaa waxay gashanaysaa habda geyr gashanaysaa marka waxa weeye halka markaa marayay ayaan waxa weeye waxa igu dhacay hanjabkii koowaad sidana waxa weeye cilmi baaristu waxay leedahay hanjab bay leedahay marka hanjabkii koowaad ayaa igu dhacay oo waxaan dabacay inaan iska daayo waxa weeye marka waxaan u tagay ragga yaqaana cilmi falaga baan u tagay nin magaalada Gaalkacyo joogay oo la oran jiray Sheekh Maxamuud Ciise Gurey la oran jiray ayaan u tagay arintii baan u sheegay
waxaan saasaan wax u baaray saasaan igu dhacday maxaa marka muxuu ahaa arintaas bal jawaab ma u haysaa sheekhu wuxuu igu yiri waa soo jabtay horta qofka markuu soo jabo ayaa wax loo sheegi karaa hadda waxa weeye meel fiican baad ii joogtaa su'aal bi weydiiyay wuxuu yiri ma aragtay qorraxdu mar ina dhacdo 12 iyo barka ma aragtay ها ما أري ما أركتي قرحضو لبيه طبعا كان أنا دعوه ها وأركي لبيه طبعا كان دار تاي ما أركتي أو لبيه طبعا كان يلابتك يملاس أي دعسوا وأركي ويحيري بشة وح حكومة قرحضة أيها حكومته وقت قرحضو أي مجرد سادعي ويده أو أي سوتش دو لبيه طبعا كان أي دار تاي صورة جل وحاء بيلدرتي قرحضو إنه يدور فردو bishaas waa la arki lahaa hadii magaran saamaxo ahaa qorraxdu ay dhici lahayd waqtigeedii 12 saac hadii dhici lahayd bisha waxa weeye waa la arki lahaa laakiin qorraxdii baa dheer oo dhici waday oo 12 soo jeeda marka waxa suurtagal ah bil dhalan lahayd inay dul fadhido sidaa darteed bishaas waa la waayay qorraxdu markay dhacdo 12 bilaha dhasha waa bila caadi ah qorraxdu markay magaranaysa ay dhacso 12 barta iyo barka qorraxdii waa caraday qorraxdana waxa daba ordaya habeenkii iyo qorraxdii ayaa oo isciirsanaya ayaa wixii ka dulboodayaan bishii halkaas waxa weeye bishii haduu uu qabto mugdiga habeenka waxa weeye bil aan la sugayn baa dhalanaysa oo kashafaad ku dhacaysa marka wuxuu yiri sidaas weeye hadiiba halkaas waan fahmay marka waxaan dhiganayay fasalka waxaan dhiganayay lixaad oo waxaan dhiganayay iskool yiraahdo Bardacad oo ku yaala magaalada Gaalkacyo ayaan dhiganayay cilmi baaris markaan sameeynayo waxaan ahay dugsiga dhexe ayaan ahay cilmi baaris markaan sameeynayo marka waxa weeye ardada waxa weeye dhiirigelin waxay u tahay ardada dhigata dhexe iyo sare ayay dhiirigelin u tahay anigoo ah dhexe iskoolka dhexe anoo dhiganaya ayaan waxaan galay cilmi baaristaas markaas sidii aan u shaqeyn lahaa markaas waxa weeye qaybtii labaad baa markaas ii soo baxday sidii aan u shaqeyn lahaa qaybtii koowaad maxay ahayd xawarahaas marna nambarka aan ku darayo marna aan ka jirayo ayaa qaybtii koowaad halkaas ku xirantay arintii qabsatana odaygaas iga fakiyay marka qaybtii labaad marka waxa ii soo baxday mar hadii qorraxdu ay xukunto bisha arday baan ahay waxaan ogaa in qorraxdu dheedka isku midka ah ay magaranaysaa muxuu ahaa ay magaranaysaa isku daqiiqad ay dhacdo hadda maanta waxa weeye waa 12 Oktoobar weeye marka 12 Oktoobar kasta qorraxdu isku daqiiqad bay dhacdaa marka waxaan go'aansaday inaan doono bil dhalatay oo cirka ka dhalatay iyo taariikhdii miilaadiga ahayd ku aadanayd labadaas inaan magaranaysaa isku raadsho shaqadii labaad waxaan ka bilaabay waxa ay dhalatay 1 bishii Ramadaan 1405 habeenkaas waxay ku aadanayd miilaadiga 22 bishii shanaad 1985 bay ahayd habeen talaada bay ahayd masaajid ku yaala Gaalkacyo agtiisaan taagnaa oo waagaas loo yaqaanay masaajidka dawladda hoose ama masaajidka Manajiibiyada loo yaqaanay laakiin hadda magacii waa laga bedelay waa la balaariyay waxa loo yaqaanaa Masjidul Huda baa hadda loo yaqaanaa waagaas waxaan taagnaa masaajidkaas baan ag taagnaa aan fiirinayo bisha markaas waxaan aaminsanahay 22kaas May oo kale inaan magaranaysaa aan raadiyo oo waxa weeye ilaa bishii taariikhdii miilaadiga ahayd baa waxay ku leedahay raad bay ku leedahay marka waxaan sameyn jiray waxaan raadin jiray 22 May kale ayaan waxaan isu xil saaray inaan raadiyo bil dhalatay muddo aan raadinayay markii dambe waxaan helay 1 bishii afraad 1425 isla 22 May 2004 bay ahayd baa waxaan helay bil kale oo dhalatay markaas waxaan u fariistay xisaabtaas waxay noqotay inaan labadii miilaadi kala gooyo labadii hijrina kala gooyo bay noqotay labadii miilaadi markaan kala gooyo waxay noqotay 19 sano labadii hijri markaan kala gooyona waxay noqotay 19 sano iyo 7 bilood marka waxa isleeg 19 sano oo miilaadi ah iyo 19 sano iyo 7 bilood
oo dayaxa ah baa isla eg haddana waxaa loo baahan yahay 19 sano oo milaadiga ah meeqa maalmood baa qorraxdu soo baxday qorraxdu waxay soo baxday milaadiga waa la yaqaanaa hijrigana waa midka aan raadinayno qorraxda waxay soo baxday sanadkiiba waxa weeye 365.25 markii lagu dhufto muxuu ahaa 19 sano waxay noqotay 6940 maalmood bay noqotay marka maxaa isla eg 19 sano shamsi ah 19 sano 7 bilood oo qamarka ah iyo 6940 maalmood markaas haddana waxaan u rogay 19 sano iyo 7 bilood qamarka ah wada bilo baan ka dhigay wada bilo markaan ka dhigay waxay noqotay 235 bilood bay noqotay markaas waxaan ku xijiyay inaan maalmihii u qaybsho bilihii 6940 maalmood u qaybi 235 bilood waxay noqotay markaa bil kastaba 29 maalmood iyo 25 la hoos dhigay 47 oo jajaba jajabkaas markaa wuxuu keenaa bilaha qaarkood inay noqdaan 30 qaarkoodna ay noqdaan 29 si kale markaan u fasiro waxa weeye 47 bilood 25 kamida 30 bay ku dhamaadaan muxuu ahaa 22 soo horena 29 bay ku dhamaadaan marka xisaabtaas marka aan magaranaysaa soo fariisiyay oo aan bishii helay bishaas laguma sameyn karo calendar xawaarahaas aan helay laguma sameyn karo calendar sababtu waa maxay xawaarahan waa hal number oo fadhiyo weeye bishana hadda waxa weeye awal baa soo sheegnay sidii adigu uu soo sheegay marna inay dheeraynayso marna ay gaabinayso sababna ay u tahay qorraxda marna cararaysa marna gaabinaysa in ay sabab u tahay markaas waxaan galay markaas qaybtii saddexaad qaybta saddexaad waxay ahayd qayb markii si loo fiirsho dhib yar laakiin qaabka loo shaqeynayo aad u dhib badan bay ahayd waxaana laga faa'iideysanayay labadii qaybood oo hore oo aan soo maray qaybtii koowaad waa tay ahayd waxaan aaminsanaa anigu in bishu xawaaro go'an ay leedahay 12 sano ka bacdi baan ogaan doonaa bishu xawaaro go'an inaysan lahayn taasoo markaa waxaan ka soo faa'iideystay bishu xawaare go'an inaysan lahayn qaybtii labaadna waxay ahayd oo aan soo fariisiyay inaan soo helay 19 sano oo qorraxda ah in ay la mid tahay 19 sano iyo 7 bilood oo dayaxa ah labadana ay la mid yihiin 6940 maalmood inay la mid yihiin marka labada qayboodba markii laga faa'iideysto waxay noqonaysaa bishu in magaranaysaa muxuu ahaa qorraxda dhicitaankeeda ay magaranaysaa saameyn ku leedahay marka bisha waa la ogyahay muxuu ahaa bilahan milaadiga ah marna qorraxdu waa degdegtaa marna qorraxdu waa soo taagan tahay marna 12 kay dhacdaa waa la ogyahay marka midii koowaad aan ka bilaabay waxay ahayd muxuu ahaa dhalatay 22 May 1985 marka waxay noqotay markaas in aan diiwaan geliyo muxuu ahaa bilaha soo socda oo bil kastaba waxay yeelan doontaa xagga shamsiga ah dheyd gooni ah oo ay dhalato waana 235 bilood waa 235 bilood marka loo fiirsho marka yani muxuu ahaa loo tarjumo 19 sano iyo 7 bilood marka laga dhigo wada bilo waa 235 bilood marka waxa la rabaa 235 bilood in bilbil loo diiwaan gasho bil kastana waxay yeelanaysaa dheydka shamsiga ah meel bay ku yeelanaysaa meel go'an marka dheydkii shamsiga kii koowaad waxaan ka bilownay 22 bishii koowaad 22 bishii shanaad ama 22 May baan ka bilownay tan waxay yani la mid noqonaysaa si kale marka ay idin fahamsiiyo waxa jira su'aal
dhalinyarada lagu furfuro maskaxdooda oo la yiraahdo nin baa wuxuu watay ri iyo caws iyo shabeel wuxuu yimid meel wabi ah oo rabo inuu ka gudbiyo saddexdii waxyaalood uu watay doontii uu raaci lahaa ma qaado muxuu ahaa ma wada qaado isaga iyo cawska ama isaga iyo shabeelka ama isaga iyo rida kaliya qaadaan meesha inuu ku gudbana waa la rabaa haddii uu cawska qaado shabeelkii baa wuxuu cunayaa ridii haddii uu shabeelka qaado muxuu ahaa hadduu shabeelka qaado ridii baa waxay cunaysaa cawskii marka waxaa la rabaa iyagoo kale ammaan ah inuu gudbiyo su-aashaas marka maskaxda dhalinyarada lagu furfuri jiray waxayna jawaabta u noqotay inuu marka hore uu qaado laba aan iscuni karin intuu ka tago inuu magaranaysaa isaga iyo mid kale uu magaranaysaa doonta ay fuulaan marka hore wuxuu qaadayaa ridii buu qaadayaa meesha wuxuu uga tegayaa shabeelkii iyo cawskii shabeelkii cawsku cunimayo xagga markuu ridii geeyuu soo laabanayaa wuxuu qaadayaa shabeelkii xagga markuu geeyo ridii buu soo ceshanayaa halkaa markuu keeno cawskii buu ku bedelayaa xagga wuxuu geenayaa habda mid buu qaadayaa adigoo xaggaasaa waxaa la isugu geenayaa iyagoo kale ammaan helay buu xaggaa isugu geenayaa marka sidaasoo kale su-aalaha baa meesha ku jirta marka maadaama marka qoraxdii ay saameyn ku leedahay bishii waxaa la rabaa xal in la helo markaasaa xalkii wuxuu noqday 235 bilood mid kastaba gooni ahaan in loo diiwaan gasho waxaan bilaabay diiwaangelin marka diiwaangelintaas waxaan bilaabay 2004 ayaan bilaabay 2004 waxaa la rabaa inaan wado ilaa 2023 bisha May inaan wada la rabaa hawshu marka waxa weeye diiwaangelintaas waxaa la rabaa inaan la ilaawin oo bil kasta oo islaamka ay dhalanaysa in la socdo la rabaa waana ku guuleystay ilaahay mahadis bil kasta waa fiirin jiray markay dhalato 235 bilood markii dambana waxa weeye waan ku guuleystay 235 bilood waxaana igu dambeysay 1444 bishii 10aad kowdeedii ayaa igu dambeysay oo aan diiwaan gasho markaasi waxay noqonaysaa haddana tijaabo inaan galo 1444 bisha 10aad kowdeeda baan waxaan rabay inay dhalato maalin isniina anoo raacaya cilmigii hore iyo cilmi baaristii hore aan soo maray inay dhalataa la rabaa maalin isniina ma noqon waxay noqotay maalin axad ay noqotay halkaa marka waxaa ka yimid hanjabkii labaad baa ka yimid laakiin wuxuu ka sahlan yahay hanjabkii koowaad wuu ka sahlan yahay wuxuuna leeyahay meel loo raaco ayuu leeyahay farqiga waxaa soo baxay hal maalin baa waxaa laga rabaa 38 sano in loo qaybsho waa intaa kaliya ayaa loo baahan yahay marka halkaasna waxaa igu dhammaaday qaybtii muxuu ahaa saddexaad marka cilmi baaristu ma ahayn intaa kaliya waxay ahayd noocyo badan baan wax u baari jiray waxaa ka mid ahaa intaan hadda aan waday midaan diiwaangelintahay hadda aan ka sheekeeyey muddo 19 sano 9 sano aan diiwaan gashay oo 10 sano ayay hartay baa waxaan dhageystay muxaadaro uu jeedinayay Sheekh Mustafa Haruun su'aal la weydiiyay ayuu wuxuu ka sameeyay muxaadaro su'aasha la weydiiyana waxay ahayd ma loo dabaaldegi karaa Happy New Year su'aashaasi ahayd su'aashii markaas wuxuu ka dhigay muxaadaro dheer buu ka dhigay taariikhdan Happy New Year iyo milaadiga ah asal ahaan meeshay ka timid ayuu ka soo sheekeeyay nimankan ahli kitaabka oo hadda haysta nimankan hadda muxuu ahaa nasaarada sheegta oo hadda haysta waxa weeye raaliba kama ahayn bilaha magacaashooda Janaayo Febraayo oo ka soo jeeda asnaam magacyadooda ka soo jeeda raali kama ahayn dagaal baana ka dhaxeeyay ayaga iyo nimankii mushrikiinta ahaa oo Greegu madaxda u ahaa markii dambe waa laga adkaaday ahli kitaabkii
waana lagu khasbay Janaayo Febraayo oo muxuu ahaa ka soo jeeda magac mushrikiina inay qaataan adigu markii u dambeysay wuxuu ka sheekeeyay nimankii mushrikiinta ahaa waagii hore inay xisaabsan jireen muxuu ahaa dayaxii ay xisaabsan jireen iyo midaan magaranaysa shamsiga ah ama qoraxda ah ayay isbarbar dhigeen waxay heleen buu yiri in 19 sano oo qoraxda ah ay la mid tahay 19 sano iyo 7 bilood oo ah muxuu ahaa laakiin isagu wuxuu yiri 235 bilood inay la mid tahay ayay heleen hawsha markay helayaana waxay ahayd nabi ciise ka hor 432 sano ka hor waxaana loo bixiyay Metonic cycle Sheekh Mustafa muxaadaradiisii Metonic cycle waxaan uga daba tagay internetkan ka dhex helay wixii waxay ka dhigeen wax hadal ah ayay ka dhigeen laakiin aan ahayn jadwal laakiin anigu taydu waxay ahayd inaan sameeyo jadwal baan ka dhigay anigu kaygii waxaan u bixiyay magacaas cumru dunyaha la yiraahdo ayaan u bixiyay insha Allah waxaan rajeynayaa marka u dambaysa inaan ku guuleysan doono cilmi baaris kale oo ayadana aan waday waxa kamid ahaa nin alla ninkii yiraahda waxaan joogi jiray Sacuudiga waxa weydiin jiray inta Sacuudiga joogtay bil wax ka aragtay ma ku soontay ma ku iiday su'aal noocaas ah weydiin jiray waxaan helay nin 8 sano joogay mid joogay magaranaysa 20 sano mid 30 sano joogay ninkii ugu badnaa wuxuu ahaa 50 sano baan joogay buu yiri ninkii ugu dambeeyay 50 sano adeero ma aragtay baan iri bil aad wax ka aragtay oo ama ku soontay ama aad ku iiday wuxuu raacay ragii hore wuxuu yiri 50 sano baa la sheegay bil aan wax ka arkay kumana soomin kumana iidin 30 sano ayadana waxa weeye waa cilmi baaris kale oo ayadana meesha joogta waxa kale oo jiray xagga kutubta marka la raaco waa la yaqaan nusuustaas muxuu ahaa aayadaha iyo ahadiista ka hadlaya faman shahida minkum shahra falyasumhu ba kamida aayadaas quraanka ah ninkii bisha arka ha soomo sidoo kale iiduna waa sidoo kale waxa kale oo kamida صوموا بالرؤية وافضلوا بالرؤية فكمذا وحوي لباس حديثنا واحد مدة إن أيداس حديث كاس إنه واضح يهين بعد مدة مركا علماء واسكو قبتين وحوي تفسير كي بقولوا من أشيدتي قولوا وحي ليهين وحوي أدون كنا بالله الله صوموا بالرؤية وحوي هدي لك أركو مثال محور تشاينا oo halka laga soo sheego waxa weeye waa inaan ku soonaa oo argaas waa inaan raacnaa ama Mareykan hadii laga soo sheego waa inaan raacnaa soomo biru'ya saasa tafsiirkeedu yahay baa culimadu qaarkeed ay ka dhigeen laakiin waxa si faahfaahinaya xadiis kale oo la yiraahdo caana oo la yiraahdo Kurayb xadiisul Kurayb la yiraahdo xadiiskaas wuxuu ka sheekeynayaa ninka Kurayb la yiraahdo in loo diray Madiina in loo diray maxaa wax oran lahaa meel yahay Sham in loo diray oo hawl looga diray intuu Sham ku maqnaa ayaa halkaas waxa ugu dhalatay bishii Ramadaan baa halka ugu dhalatay isagoo wili sooman oo Ramadaankii aysan dhamaan ayuu soo laabtay meesha uu ka tagay Madiina ahayd Madiina uu ku soo laabtay waxa wareystay Abdullah ibn Abbas wuxuu yiri markuu hawshii uu ka wareystay kale buu wuxuu yiri goorma soo soonteen wuxuu yiri waxaan soo soonnay maalin Jimco ah oo ma adiga arkay wuxuu yiri aniga waa arkay Muaawiyana wuu arkay oo meesha madax ka ahaa dadka oo dhan waa wada arkeen waa la wada soomay Abdullah ibn Abbas wuxuu ku jawaabay horta anagu waxaan aragnay sabti Jimco ma ana arag sabti baan aragnay haddii bishaas aan arki weynana 30 ka dhameystirnayna oo anagu ka bilownay sabti معناها جمعيه شام كبلا منه أي واحد كبلا بينا سبت ذي مدينة عم بيش كأرجني أيان كبلا بينا سؤال بودي وحير أو موضع رومسنين هذا الكي المعاوية وحيره ورومسنا هاي لكن سيدا صاحب عن أمري رسولك عليه الصلاة والسلام
saasuuna amray xadiiskan marka waxa laga qaadanayaa in muxuu ahaa magaalo kastaba arageeda ay ku soomayso oo ku afurayso ayaa xadiiskaas laga fahmayaa halkaasna waa halkaa marka waxaa jira xagga diinta waxyaalo kale oo waxaa jira dadku ay iskaga darsadaan maamaha waxaa jiray Soomaaliyeed oo la yiraahdo waxaan meesha ku jirin hadii la keeno wax meesha ku jiray baa ka baxa waxaa kamid ah wax yaani diinta ay ku darsadeen reer baadiyuhu anigu saa'isiri quraanka waxa ku qoran muxuu ahaa afarta bilo xurmo baa ku qoran afarta bilo xurmo waxa weeye bisha la yiraahdo Rajab oo meel gooniya taagan Dhulqacda iyo Dhulxajja iyo Muharram saddexdaas oo isku xiga waxa weeye afarta bilo waa bilo xurmo baa la yiraahdaa xukum bina leeyihiin xukumkooduna waxa weeye afarta bilood in magaranaysa la isnabad galiyo oo aan la isdilin oo aan waxba la yeelin oo guryaha aan la iska saarin xukumkaas ayay leeyihiin kutubtii hore waa ku qornay nimankii muxuu ahaa reer Madiina inta nabigu soo bixin xukumkaas ayay ku amal fali jireen oo magaranaysa muxuu ahaa ismaaciisa magaranaysa wax yeeli jireen si kastoo isku cil qabaan afarta bilo amaan bay siin jireen laakiin hadda waxa jira afarta bilood hadda Soomaalidu waxa weeye waqtiyada hadda ay dagaalamaan waa afarta bilood meeshana waxa la keenay waxa la yiraahdo afarta bilo saman ayaa la keenay oo ay yiraahdaan waa Rabiicul Awwal iyo Rabiicul Aakhir iyo Jamaadul Awwal iyo Jamaadul Aakhir marka hadii la oran lahaa yaani afarta bilood waa isku magac oo saman yaani sami weeye oo saasa loogu bixiyay bila saman xukum bay u sameeyeen sida aayadii quraanka ahayd oo kale bay u sameeyeen waxay yiraahdeen afarta bilood geela lama bixiyo marka waxa weeye waana arin maxkamadda reer baadiyuhu leeyihiin hadda weydiisay dadka caamiga kulligood waa wada yaqaanaan laakiin ma yaqaanaan afarta bilo muxuu ahaa xurmo ma yaqaanaan hawsha intaan waday oo kale oo muxuu ahaa waxaan kaloo helay wadaad la yiraahdo Sheekh Mursal Cabdiraxmaan Axmed ayaa wuxuu magaranaysaa noo akhriyay group waxaan ku leenahay WhatsApp-ka groupkii wuxuu noogu sharxay kitaab la yiraahdo Nibras fi Jadwatul Mudii'ah ayuu magaranaysaa muxuu ahaa noo sharxay qaabka xalqada oo kale sida faraa'idka loo akhriyo oo kale ayuu noogu sharxay runtii waan fahmi waayay laakiin wuxuu ahaa cod ii duuban buu ahaa waa ku celcelin jiray markii dambe waxaan ka dhigay jadwal baan ka dhigay sida kalendarku u qoran yahay oo kale ayaan ka dhigay dabagal baan ku sameeyay markaas dabagalkaas waxaan weydiiyay muxuu ahaa jadwalkaas koodii bishii Ramadaan 1405 baan weydiiyay oo maalin Talaada bal in uu khalday in kale sax buu ku keenay marka arintaasna arin yaab leh ayay ugu noqotay oo kitaabkaas waxa weeye waa kitaab yaab leh waxa kaloo jira kalendarada waxa weeye rag badan baa sameeyay kalendarada hijriga ah waliba waxa laga dhigay application maanta waxa weeye waxa loo guurayaa nooc kale oo la yiraahdo application baa loo guurayaa kalendarkii la suro jiray darbiga hadda waa si yaraanaya ama ma jiro marka application la yiraahdo Sun Moon Calendar ayaan arkay kalendarkaas wuxuu ka fiicnaaday application badan oo aan fiirin jiray ayuu ka fiicnaaday waliba waxa is leedahay wuxuu la socdaa araga bisha ayuu si fiican ula socdaa marka kalendarkaas dadka ayaan ku booriyaa oo asxaabteyda ayaan u sheegay waxaan yiraahdaa kalendarkaas hal barto isaga ugu roon muxuu ahaa huhaada kale inta iska daysaan iyo kalendarada kale oo khaldan kalendarkaas hal la qaato intaan hawshaan waday waliba hawshaan bilowgeedii waxa jiray hawl kale oo aan galay waxaan sameyn jiray calendar baa waxaan ku daabici jiray A4 calendarkaas waxaan u qaybin jiray magaalada Gaalkacyo oo markaas magaalo yar ahayd ayaan u qaybin jiray hal box oo kale baan intaan daabaco baan magaalada u qaybin jiray
waana waqtigii raadi muqdisho iyo raadi hargeysa laga bilaabay in laga sheego beenta bil aan dhalan la yiraahdo bishii waa dhalatay waqtigaasi ahayd adigu 2 sano 3 sano markaa qaybinayay ayaa dadweynihii magaalada Gaalkacyood la isu ka sheego waxa la yiri raadiyaha warkiisa iyo ninkaas kalandarka u soo saaro fiican amaantii waxay gaadhay nabad sugidii dawladda ayay gaadhay waxa la iga yeeray nabad sugidii magaalada Gaalkacyood baa la keenay waa la soo qabtay la iga yeerin waa la soo qabtay kalandarkii markii xafiiska la keenay miisku saaran yahay ninkii markaa haystay xafiiska waxa weeye su'aal buu iga weydiiyay yaa ku fasaxay waxa kan inaad maartay samaysid inaan la doodo aan isku dayay oo iraahdo waxa kan waa wax cilmi ah carabaha rabaa inaan la tartamo waxa weeye hawshan ma garanaysaa helele wax maartay noocaas ayaan galay show ilaa waxa weeye ninkan waxa weeye waa eel qaba waa gudoomiyihii nabad sugidda gobolka Mudug weeye wuxuu yiri 3 dambi baa ku jirtaa adigu waxa leedahay waxbaan baarayaa laakiin 3 dambi baa ku jirtaa dambiga koowaad waxa weeye waxaan lagu dirsan baad gashay dambiga labaadna waxa weeye qalabkii dawladda ku shaqaysatay dambiga saddexaadna waxa weeye ayadoo aan lagu fasaxin ayaa dadweynaha waxaagi u qaybisay marka 3 dambi baad ku jirtaa hadda waxa weeye ama isfasax ama isxir hadii aad tiraahdo joojin mayo waxa kan waa wadaya waan ku xiraynaa hadii aad tiraahdo waa joojinayna waa ku fasaxaynaa marka haye maxaad maganaysaa ama isfasax ama isxir waxayna waa isfasaxayaan waxa weeye halkaasna waxa iga yimid culayskaas baa waxa iga yimid xagga dawladda Soomaaliya baa dhisan markaas ilaa waxa la rabaa in la raaco siyaasadda dawladda waa u jeedaa in loo jeedo siyaasadda dawladda oo rabtay dadku inay Soomaalian anteedii ahayn inay soomiso oo maalin anteedii ahayn inay iidiso ayaa dawladdu markaas siyaasadeeda ahayd tii baan la rabaa inaan raaco aan ka hor imaan marka hawshaasna waa iga hortimid insha Allah waxaan rajeenayaa hawshan in ma garanaysaa muxuu ahaa jiilba jiil uu u dhiibo oo waxa weeye kalandarada hadda milaadiga ah dhibaatooyin badan baa laga soo maray waxa weeye jiilba jiil buu u dhiibay maalin walba khalad baa laga helayay oo khaladkaas laga magacaysanayay kalandarkan hadda cimridiyaha la yiraahdo waxaan rajeenayaa jiilal dambe intay iga xambaaraan inay si hufaan wixii khalad ah oo ay ka helaan kabacdina ay ka faa'iideystaan baan rajeenayaa marka halkaas aan ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh